ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamsa Cabdi Barre oo kormeer ku tagay degmada Daarusalaam ayaa halkaas wakhti kula qaatay boqollaal dadweyne oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo u dabaaldegayay farxadda maalmaha ciida taasi oo ka turjumaysa amniga iyo nabadda ka hirgashay caasimadda dalka ee Muqdisho. ra'iisul wasaare Xamsa Cabdi Barre ayaa ku bogaadiyay horumarka bilicda iyo amniga ka jira degmada Daarusalaam isagoo ku dhiirigeliyay bulshada iyo ganacsatada Soomaaliyeed inay sii wadaan dadaalka ay ugu jiraan horumarinta caasimadda iyo guud ahaan dalka. mudane Xamsa Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa cadeeyay in dawladdu ay si buuxda u garab taagan tahay ganacsatada si loo gaaro horumar isla markaana ay kala shaqeyn doonto sidii loo abuuri lahaa fursado cusub oo ganacsi iyo maalgashi. dhulka horumariyaan xoolahooda meelo kale geliyaan wadamo kale geliyaan billions bay geliyeen wadamada xataa dariska ah marka dalka waa nabad waana la maalgashan karaa asagaana ugu fiican marka inay dalka maalgashadaan intaan dad kale aan u yeernaa oo dhahnaa kaale imaada oo maalgashada laakiin dadka Soomaaliyeed baa xal rabaa inay dalkooda maalgelin in la maalgelin karo oo nabad lagu maalgelin karana meeshan aan fadhinaa hadda ayaa daliil u ah oo ay ka muuqataa waan ku boorinayaa dadka inay imaadaan oo maalgashadaan oo ka faa'iideystaan qofka Soomaaliga ah waa inuu ka hadlaa degmadaydan hal ay dhiso deegaankaygan hal ay dhiso Soomaaliya kaalaya adduunka kale u kaalay dalkan in la furo oo dalka ugu yeerno dadka ugu yeerno oo la maalgashado oo la qurxiyo ayaa qof kasta micno u leeyahay oo ugu yeelanaya kaasaad shaqo ku heli kaasaad caafimaad ku heli kaasaad waxbarasho ku heli kaasaad يعني maxaan ku dhahaa qurux iyo bilic aad ku helaysa waa inaan u diyaar garoono in la maal gashado dalkan in la dhiso in la qurxiyo meeshaas inaan ku tartana way fi dalika falyatanafas almutanafisun dawladdu waxay garab taagan tahay ganacsatada Soomaaliyeed waa garab istaagayna waliba hadda yartaan waxaan rabnaa anaga iyo ganacsatada private-ka iyo anagu inaan wax isku darsanaa rabnaa hadda qorshahaas aan wadnaa hadii la yiraahdo qorshaha oo dhan iyo wax walba inta meel wada fadhiisana inaan qorsheynaan rabnaa dhaqaalaha dadka iyo horumarkiisa iyo infrastructure-ka iyo si loo soconayo dhan wax oo dhan idinka lead-ka ah oo hogaaminaysaan marka soo diyaar garooba waa mahadsantihiin mar kale waxaan leeyahay reer Daarusalaam ciid wanaagsan waxaan leeyahay reer Muqdisho guud ahaan iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan ba ciid mubaarak ciidan ciideeda kala bashbashay barwaaqo leh inuu gaarsiiyo waanu ku faraxsanahay maanta inaan halka joogno insha Allah meelaha kalena ay hope inaan tagi doono hadii la yiraahdo aad baad u mahadsantihiin